asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta ku xiran janalka mar kale soo dhowaada aad iyo aad u mahadsantihiin maanta waa arbaco waana 4 bisha 2 ee February sanadka 2026 muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinkula wadaago war u fiican dadka reer Minnesota walow weli ay caqabadihii jiri doonaan ninka Trump uu u xil saaray arrimaha gobolka Minnesota gaar ahaan howlgallada ciidamada ICE ee Tom Harman oo shir jaraa'id qabtay saaka ayaa waxa uu sheegay in wada shaqayn buuxda ay ka heleen qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Minnesota iyo ciidamada booliska iyo ICE inay wada shaqeeyaan sidaas darteedna ay yareynayaan ciidamada ICE ka jooga gobolka Minnesota haddaba imise askari ayaa laga qaadayaa ciidamada ICE ka jooga gobolka Minnesota waan idinla wadaagayaa maayarka magaalada Minneapolis oo arrintaasi isaguna ka hadlay waan idinla wadaagayaa dowladda xirnaashaheedii uu soo gabagaboobay xalay kadib markii aqalka wakiiladu ay meel mariyeen sharcigii aqalka sanadku habeennimadii jimcaha oo sabtida uu soo galay ansixiyeen iyo madaxweyne Trump oo saxiixay ninkii isku dayay Trump inuu dilo dhammaadkii sanadkii 2024 isla markaana dambi lagu helay bishii 9aad ee sanadkii hore ayaa maanta la xukumay isagana imise ayaa lagu xukumay waan idinla wadaagayaa balse marka hore soo dhaw ilkii kalkaaliyihii caafimaad ee Alex Brady ciidamada ICE 24 bishii hore ay ku dileen magaalada Minneapolis in maamulka Trump cadaadis xoogan uu saarnaa oo la xiriira inuu dilkaasi ahaa dil ula kac ah oo bareer ah walow ciidamada ICE iyagu ay sheegeen in ninkan hub uu watay isla markaana ay isdifaacayeen laakiin markii dambe la ogaadaba in 10 xabadood lagu dhuftay ninkaasi kadib markii mid kamid ah askartii dhulka ku haysay uu busooladiisii ka qaaday arrintaasi iyo waliba dilkii Renee Good oo shalay laba walaalaah oo la dhashay ay Congress ka tageen isla markaana cabashadooda ay u gudbiyeen halkaasina ay ka hadleen Trump waa kii bedelay ninkii ciidamada ilaalada xuduudaha madaxda u ahaa Greg Bofino isla markaana Tom Harman Minneapolis u soo diray Tom Harman waxa uu wada hadal la yeelanayay maalmihii ugu dambeeyay gudoomiyaha gobolka Tim Walz maayarka magaalada Minneapolis Jacob Frey midka sidoo kale St. Paul iyo xeraalyaha guud ee gobolkaasi iyo ciidamada kala duwan kuwa state police-ka iyo sidoo kalena kuwa oo local police-ka oo isaguna wada hadallo kala duwan oo la yeelanayay haddaba saaka ayaa shir jaraa'id uu qabtay waxaana uu sheegay in wada shaqayn buuxda ay ka heleen qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Minnesota isla markaana hadda loo ballan qaaday in dambiilayaasha ay ciidamada boolisku ay qaban doonaan oo loo baahnayn in ciidamada ICE intay baxaan iyagoo 8 ilaa 10 iskula socda inay howlgallo gudaha magaalada Minneapolis ay ka sameeyaan marka arrintan waxa uu sheegay in uu suura gelinayso in ciidamadii faraha badnaa ee magaalooyinka St. Paul iyo Minneapolis ee ICE lagu arki jiray aysan jiri doonin wada shaqaynta booliska iyo ICE-na ay jiri doonto marka waxa uu yiri si aan amniga dadweynaha uga shaqeyno magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul waxaan u baahannahay wada shaqayntaasi waxaana uu sheegay in kulamada uu la leeyahay mas'uuliyiinta gobolka iyo kuwa degmooyinka iyo ciidamada booliskaba aysan weli dhammaanin laakiin waxa uu sheegay wada shaqayn aan horey loo arkin in hadda ay ka heleen qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Minnesota waxaana uu xaqiijiyay sidoo kale arrintaasi in ay yareynayso howlgalladii faraha badnaa oo ciidamada ICE ay sameyn jireen gobolka Minnesota waxaan ognahay waxa uu ka mid yahay gobolada Sanctuary State-ka kuwaasi oo ciidamada booliska aysan la shaqeynin saraakiisha federaalka ee sharciyada immigration-ka dhaqan gelinaya laakiin hadda cadaadis fara badan waxaa muuqanaysa in gobolka Minnesota uu ogolaaday in qayb ahaan ay kala shaqeeyaan dowladda federaalka iyo ciidamada ICE-ba sidii dadka dambiilayaasha markii boolisku ay qabtaan ICE loogu wareejin lahaa waxaa sidoo kale uu sheegay in gobolka uga mahad celinayo dadka sharci la'aanta oo aan muwaadiniin Mareykan oo dambiilayaasha inta marka ay xabsigooda dhameysanayaan in loo soo sheego oo kadibna ciidamada ICE ay u yimaadaan isla markaana halkaasi ay ka qaataan wuxuu yiri wada shaqayntaasi horey ayuu u jirtay waan uga mahad celinaynaa mana doonina yiri xabsiyadu qof xabsigiisii uu dhamaaday inay xabsiga ku sii hayaan laakiin waa inay nagu soo wargeliyaan ka hor marka uu dhammaan rabo xabsigiisa si aan u tagno marka uu dhamaado xabsigiisa oo uga soo wadano xabsiyada uu ku jira ee gobolka Minnesota bal isagoo arrimahaasi ka hadlayay Tom Harman waxa uu yiri We have made significant progress under the direction of President Trump, working with state and local officials here in Minnesota, and I expect that to increase in the coming weeks. We continue to have discussions. We currently have an unprecedented number of counties communicating with us now and allowing ICE to take custody of illegal aliens before they hit the streets. This is efficient, requires only 1 or 2 officers to assume custody of a criminal alien target
rather than 8 or 10 officers going into the community and arresting that public safety threat. This frees up more officers to arrest or remove criminal aliens. More officers taking custody of criminal aliens directly from the jails means less officers on the street doing criminal operations. This is smart law enforcement, not less law enforcement. It's safer for the community, safer for the officers, and safer for the alien. This coordination also makes it far more safe for the Twin Cities. Arresting a public safety threat in the safety and security of a jail is the safest thing we could do. The state prisons already cooperate with ICE on this coordinated transfer of custody, and we thank them for that partnership, and we plan to do more with them. I also want to reiterate and emphasize we are not requiring jails to hold people past their normal release time for immigration purposes. We're not asking anyone to be an immigration officer. sidoo kale Tom Haman waxa uu sheegay maadaama wada shaqayntaasi ay timid oo markii hore aysan jirin in hadda uu go'aansaday laga bilaabo maanta 700 oo kamid ah ciidamada ICE ka joogay gobolka Minnesota in laga bilaabo maanta ay isaga baxayaan gobolka Minnesota. waxaan ognahay tiro gaaraysa ilaa 3,000 oo ciidamo ah ayaa lagu qiyaasay ciidamada ICE ee joogay gobolka Minnesota. maalmihii uu dhacay dilkii Alex Brady waxa la leeyahay boqolaal askari ayaa la qaaday. marka hadda wali sida la saadaalinayo oo loo maleynayo ilaa 2,000 oo askari ayaa ku hareysa magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul marka 700 oo askari hadda sida uu sheegay Tom Haman laga qaado gobolka Minnesota. waxaana sidoo kale uu sheegay in ICE ay sii wadi doonaan howlgalladii targeted ah oo bartilmaameedka ahaa oo dadka dambiilayaasha iyo kuwa sharci la'aanta ay ku bartilmaameedsanayeen. laakiin waxa uu yiri ma jiri doonto ciidamadii faraha badnaa ee magaalooyinka lagu dhaxarki jiray. waxaana uu sheegay in hadda ciidamada xuduudaha iyo kuwa ICE ba hal hoggaan ah ay yeelan doonaan halka markii hore laba hoggaan ay kala lahaayeen. waxaana uu sheegay wali ma aanan hilmaamin oo sharciyadeennii kale ee immigrationka iyagana waan sii wadi doonaa ayuu yiri Tom Haman isagoo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yiri Given this increase in unprecedented collaboration, and as a result of the need for less law enforcement officers to do this work in a safer environment, I have announced effective immediately we will draw down 700 people effective today, 700 law enforcement personnel. We have also fully integrated CBP personnel into the ICRO team structure under one unified chain of command. Not two chains of command, there'd be one chain of command here. During my press conference last week, I announced that moving forward, ICE will be conducting targeted immigration enforcement operations, like ICE has traditionally done for decades, based on reasonable suspicion to question and detain. ICE will conduct these operations and transnational criminal organization investigations with a focus on national security and public safety. I want to be clear. Just because you prioritize public safety threats don't mean we forget about everybody else. We will continue to enforce the immigration laws in this country. haddaba hadalkaasi Tom Haman markii uu soo baxay kadib maayarka magaalada Minneapolis Jacob Frey ayaa qoraalkan waxa uu ku soo qoray bartiisa Facebook. waxa uu yiri ilaa 2,000 oo ciidamada federaalka ah oo hadda wali jooga magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul ma ahan in xaaladda la dajiyay. waxaana aan weydiisanaya ayuu yiri in Operation Metro Surge gabi ahaanba la soo gabagabeeyo. waxa uu sheegay yareynta ciidamada ICE ka jooga gobolka Minnesota iyo waliba in kaamarooyin loo xiro waa tilaabo dhinaca wanaagsan loo qaaday. waxaan ognahay 2 maalmood ka hor wasiirka amniga gudaha inay sheegtay in hadda kadib askari kasta oo ciidamada ICE ka tirsan kaamara ay u xirnaan doonto. waxa uu yiri waa wada dhinaca wanaagsan loo qaaday laakiin 2,000 oo ciidamo ICE oo wali jooga waxa uu yiri xaaladdu ma degana. sidaas darteed waxa ay fariindeeyay aqalka cad aan u jeedinayo Operation Metro Surge waxa uu noqday yiri mid masiibo ah. waxa uu noqday dadka deegaanka iyo waliba ganacsiyada waxaana loo baahan yahay in si degdeg ah lagu soo gabagabeeyo. sidaas ayuu yiri maayarka magaalada Minneapolis Jacob Frey oo ka hadlayay Tom Haman hadalkiisa iyo yareynta ciidamada ICE ka jooga gobolka Minnesota. intaasi haddii aan ka gudbo arrimaha gobolka Minnesota waxaan ognahay muddo ku dhawaad 3 maalmood in dawladda qaar kamid ah wasaaradaheedu ay xirnaayeen kadib markii aqalka sanadka habeennimadii Jimcaha oo Sabtida uu soo galayay ay meel mariyeen sharcigii inta badanna dawladda miisaaniyadeeda la meel mariyay ilaa iyo dhamaadka sanadkan oo September 30keeda in dhammaanba dawladda la maalgelinayo marka laga reebo wasaaradda amniga gudaha
oo iyada muran uu ka taagan yahay oo 2 toddobaad oo kaliya labada xisbi ay haystaan inay ka heshiiyaan qaabka wasaaradda amniga gudaha isbedel loogu sameyn karo already isbedelkii waa u bilaamay waa hadda kaamarooyin waa tan ciidamada lagu xiray marka shalay galinkii dambe ayaa aqalka wakiiladu ay meel mariyeen sharcigii ay aqalka sanadku ay meel mariyeen marka 217 ayaa u codeysay 214na waa ay diideen 196 Republicana ayaa u codeeyay 21 Republicankan waa ay diideen halka 193 dimuqraadiyiin ay diideen 21 dimuqraadiyiinna ay u codeeyeen haddaba markii la ansixiyay kadib ayaa waxa loo geeyay madaxweyne Trump aqalka cad halkaasi ayuuna ku saxeexay dawladuna waa ay sii shaqayn doontaa ilaa iyo September 30keeda oo dhammaanba sanadkan inta ka harsan ah oo fiscal yearka sida dawladda Mareykanku ay u xisaabtanto October ayuu u bilaabmaa September ayuuna ugu egyahay marka waa kan markii sharciga lagu dhawaaqay meelmarintiisa iyo markii madaxweyne Trump uu saxeexay. On this vote, the yeas are 217 and nays are 214. Without objection, the motion is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. So I probably won't hold this up. And I think holding up one little page doesn't do it justice. In there, it's a lot of stuff, but it's signed. dhinaca kale ninkii Ryan Ruth oo Trump isku dayay inuu ku dilo xarunta golofka uu ku ciyaaro ee Palm Beach Florida qasriga uu ku leeyahay ayaa maanta la xukumay ninkan waxaan ognahay bishii September 23keedii in lagu helay isku day dil marka xukunkiisu maanta waxa uu noqday xabsi daa'in iyo waliba askari federaal ah oo isaguna weerar u geystay oo 18 bilood loo raaciyay marka arrintan Trump waa uu soo dhaweeyay waxaana ninkan hadda uu noqon doona xabsigiisu xabsi daa'in iyadoo lagu xukumay kadib markii lagu helay isku day dil isagoo qori wata muddana doonayay ba halkaas ku dhuumanayay oo doonayay Trump oo halkaas golf ku ciyaarayay xilligii ololaha doorashada uu ku jiray bishii September 15keedii sanadkii 2024 ayaa ninkaasi uu isku dayay inuu Trump dilo bishii September hadda sanadkii hore ayaana dambigiisa lagu helay maantana xabsi daa'in ayaa lagu xukumay aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan markale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waro idin la sida iyo nabadgelyo